soo dhawaada ciyaarayna geli doonaa xalay wixii dhaawacay la yaab la ay ahaayeen kadib markii Real Madrid ee soo laabasho leh kulan soo laabasho leh ay ka gaartay guul soo laabasho leh ay ka gaartay naadiga Bayern Munich sidaas daraadeed waxaan kale ku soo qaadan doonaa goolinta Premier League iyo xaaladaha meesha la kala marayo guusha xalay Real oo aad loo buunbuuniyay iyo Bayern Munich wixii qabsaday ayaan ku soo qaadan doonaa suuqa kala iibsiga iyo markaasi tababarayaasha imaanayo ayadana ku soo qaadan doonaa barnaamij share gareey Goal Sports meel fogna gaarsiya subscribe tana noo saara waa maasantiin xalay waxaa dhacay kulan la yaab leh waana kulankii Bayern Munich iyo Real Madrid dhexmaray garoonka Bernabeu kaas oo markaasi dadka ay aad u hadalhayeen markii Real goolka lagu lahaa waxaa la leeyahay Real xaaladu ku adag tahay sidii PSG halka xab loogu dhameeyay ayaa lagu dhameyn doonaa laakiin Real markiiba ciyaartii isbedel ay gaareen ninkii Joshua ayaa xalay wuxuu noqday balaayo kale goolkii intuu u saaray ayuu haddana extra-gii lagu darayba gool kale haddana dhiga kaga laabay markaas Bayern Munich halkaas ku shilantay wala Bayern Munich gool laga diiday oo markaas ay sheegayaan in goolkaas uu sax ahaa wala ninkii referee uu diiday mar hore goolkaasi meeshan uu ka saaray marka waxaad dareemi kartaa xalay Bayern Munich inay difaac isku arorisay muddo 30 daqiiqo inay difaactamayeen taasna ay markaas adoo hal gool leh inaad difaac gashay dhibaato ay ka dhalan karto dadkuna saas ay u badinayeen laakiin Bayern Munich way dadaashay ay leeyihiin halkan maadaama ay soo gaartay finalka semifinalka maadaama ay soo gaartay xalana uu qalantay inay markaas final gaarto laakiin waqtiga ayaa ka heliyay marka waxaa farar saari doono Real Madrid iyo Borussia Dortmund halkaas waxaa ka dhici doonta ciyaar laakiin Real Madrid waxaa leeyahay nimanka experience-ga u leh Mourinho waa niman markaas inta badan Champions League ugu badan qaaday ilaa 15 jeer sidaas daraadeed waxaa laga yaabaa leeyahay markoodii 16aad inay ku leefaan halkaasi oo ay u badan tahay leeyahay Dortmund in laga badan doono ay u badan laakiin wala waxaan ciyaar ay tahay oo Dortmund naftigeeda laga yaabo in wax mucjiso ay sameeyso maadaama PSG la isdhahay PSG Dortmund waxa badan doonto PSG la isdhahay halkaasna laba jeer min hal ay ku soo dhifteen isbedel weyn ayaa ka jiro ninka Sancho wuxuu leeyahay aniga adiga Manchester United kuma noqonayo xitaa Erik ten Hag haduu tago ma doonayo ayuu leeyahay inaan ku laabto laakiin naadiga oo hadda uu joogo ma ogol yihiin in lacagtiisa ay bixiyaan oo markaasi 50 milyan ay ku qiimeynayso naadiga Manchester United taasi waa may laakiin naadiga waxay ogol yihiin in mar kale amaah ku qaataan teeda kale xidigan lacag aad far badan ay Manchester United ka qaataa oo 350,000 oo gani toddobaadkii ah haddana labada kooxood way wada qaybsadaan oo Manchester waxay bixisay 200,000 kuwan waxay bixiyaan 150,000 oo gani sidaas daraadeed waxay rabaan amaadan in iska sii socoto sanad kale markaas loogu daro laakiin ma doonayaan xidigan si toos loo wareegaa waa arki doonaa xidigan wuxuu dhaliyay 3 goolna uu caawiyay intii 21 kulan oo saftay xil ciyaareedkan intii uu joogay waa arki doonaa hadii arrinta soo gashay wixii kale Manchester United waxa soo ka ciyaartay aad u fara badan oo kamid yahay Bruno Fernandes waa asagoo hal kulan kaliya maqnaa Rashford asagana injury hore qabay waxa kale soo kac Martinez iska dhaawac badnaa markaas difaaca Lautaro Martinez ninka lagu magacaabo asagana waxa soo kacay leeyahay Lucas Shaw oo asagana ku soo biiray McTominay soo laabtay leeyahay Anthony Martial oo asagana season gindiisa badnaa maqnaa ayaa soo laabtay marka Manchester waxa leeyahay xogaa ciyaarta Arsenal madaxa ay soo qaadaan ciyaartoy badan laga yaabaa line up ku jiray ina markaas ilaa 6 ciyaartoy inay ku soo laaban doonaan garoomada ay leeyahay waa arki doonaa kulanka Axad meesha ku dambeeyo inta badan waxa aad isha lagu wada hayaa kulanka Sabtida oo markaas Fulham ay la ciyaari doonto naadiga Man City hadii Man City kulankaas ay badiso Arsenal iyo Manchester United ka badiso joog meesha joog waaye hadii markaas labada kooxood mid kamid la qabtana kan kale markaas inuu league qaata ay u badan tahay waa arki doonaa meesha ku dambeeyso waxaan u gudbeynaa waxaa la leeyahay tababaraha xulka Ingiriiska ayaa xiriir toos ah markaas waxa la sameeyay Manchester United ayagoo doonayay inuu ku bedela Erik ten Hag maadaama ay leeyihiin tababarahani waqtigiisa isku dhamaaday in fadaxadii ka soo gaartay naadiga Crystal Palace ayana sababa in la ceeriyo tababarahan sidaas daraadeed waxay leeyihiin 3 kulan oo hadda hartay iyo kulanka FA Cup-ka 4 kulan Erik ten Hag waa safe oo dhameysan doona laakiin marka inta laga baxo kadib fasax ayuu noqon doonaa oo in markaas tiimka laga ceeriyo ay noqonaysaa qandaraaskiisa halka sano u harayna meesha ay laga kansali doonaa lacagtiisa ayaa lagu wareejin doonaa marka waxaa leeyahay xidig aad u fara badan ku faraxsan in Erik ten Hag la ceeriyo oo markaas doonaya in odagan arrimihiisa la soo gabagabeeyo oo kamid yahay Rashford iyo Maguire iyo rag fara badan oo Maguire kabtanimada ka qaaday ragga aad ugu faraxsan in xidigan ninkan iska tagay ay markaas ay kamid yihiin waa arki doonaa ninkii Liverpool ee tababara u noqonay Arne Slot ayaa soo socda leeyahay taageerayaasha Liverpool ayaana soo dhaweyntiisa sugaya maadaama hadda xilli horyaalka markuu dhamaado si toos ah markaas u noqon doona tababaraha nimanka Liverpool isbedel weyn naadiga ku sameyn doona xidiga badan oo wadanka Holland ka soo wadan doona naadiga Feyenoord ayaa jiri doona isbedelkaasna asagana waxa leeyahay tababarahaasi isbedel ayuu keeni doonaa Arsenal waxa leeyahay waxa rajin ka qabtaan in Premier League ku guuleysto laakiin waxa leeyahay waa in kulan walba oo haray labada kulan oo harto ay badiyaan waana kulanka Man U iyo Everton inay diirada saaraan sidii ku badi lahaayeen
marka haddii labadaas kulan badiyaan nimankan hal kulan ay kufaan raja ayaa markaas Arsenal qabtaa, laakiin haddii labada kulan mid kamid a kufto dee taas waxay noqonaysaa in si toos ah looga qaaday Premier League. waa arki doonaa David Seaman oo saadaaliye ayaa wuxuu sheegay in Arsenal ku dhowdahay inay qaado Realka Premier League muddo 20 sano ah kadib sida oo asagu qabo. waxaa kaloo jirto ciyaaryahanno kale oo iyagana legend oo markaas iyagana saadaalinayo ciyaaraha sidoo kale hadda maxaa la yidhaha Man City rag usoo ciyaaray iyaguna waxay qabaan in Man City weli ay rajada ay leedahay oo Realka inay ku guuleysato walow kula dheeraad ay haysato taasna ay fursad u siinayso. waa arki doonaa meesha ku dambeeyo Realka. dhinaca goolinta haddaan fiirno waxaa weli hogaaminaya ninka Erling Haaland ahaa markaas wuxuu leeyahay Haaland ilaa 25 gool ayuu ku hogaaminayaa, waana ninka hadda ugu goolasho badan Premier League walow ragga ka hooseeya aysan hadda saameyntaas usii weyneyn oo markaas aysan ku lahayn. marka ninka Palmer naftigiisa ma yareysto, waxaa la leeyahay 21 ayuu dhaliyay xilli ciyaareedkan oo waa ninkii Chelsea u ciyaaray. Man City ninkaas maxay iska soo deysay dadka isweydiinayaan in hal xilli ciyaareed ba dhaliyaba 21 sidii weeraryahan camal goolasho u firqa. waa arki doonaa Chelsea naftigeeda isku shaandhayn weyn ayay samayn doontaa, ciyaartoy badan ayaa laga yaabaa inay ciyaariyaan oo xilli ciyaareedkan waxay u baahan yihiin dib u dhis. inkastoo la leeyahay maalmihii dambe oo isla qabsadeen oo hadda kor ay usoo kaceen, waxaa la leeyahay guuleys daba joog ay dhowr kulan lasoo dhaafay ay gaareen. waxaa laga yaabaa marka tababaro ninka la yihahdo Mauricio Pochettino in fursad kale la siiyo oo xilli ciyaareed kale in la siiyo si oo markaasi naadiga oo meel fiican u gaarsiiyo. ciyaartoy ilaa dhowr ahna loo keeno. Tony Bolo oo ninkaasi milkiilaha reer Mareykan ayaa u ballan qaaday inuu siin doono lacag si markaasi ugu soo iibsado suuqa, walow hadda ciyaartoy fara badan oo hadda xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay uu soo iibsaday. inkastoo ciyaartoy badan oo iibiyeen ay jiraan ilaa 3 iyo 4 gaaray tiimka ka diray sida Havertz iyo Mason Mount iyo rag kale oo markaasi tiimka ka tagay ayaa jiraan. waa arki doonaa wixii halkaas ka soo kordhay ayagana. waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa in isbedel weyn oo ku yimaado naadiyada markaasi caalamiga ah oo hadda Xavi Hernandez oo kale inuu sii joogo Barcelona ayaa dhici karto. Carlo Ancelotti haddii Champions League oo qaado asagana inuu sii joogo ayaa dhici karto. Zinedine Zidane oo tababarnimo raadinayaan waxaa la sheegay inuu Bayern Munich uu diiday maadaama uu leeyahay Bayern Munich waxaan iskula qabsan karin xagga luqadda Jarmalka iskuma fiicnin, sidaas daraadeed in uma badnaa leeyahay inuu halkaas aadi doono. waxay kale eegi doonayaan Erik ten Hag Manchester United joogo, isaguna waxay sheegeen inuusan ballanqaad haynin inuu markaasi tegi doono Bayern Munich inuu u badnayn. marka Bayern Munich Thomas Tuchel ayaa tegi doono. waxaa leeyahay tababaro cusub ayaa markaasi ay doonayaan inay meesha soo geliyaan. suuqa kala iibsiga haddaa eegno waxaa leeyahay Manchester United waxay doonaysaa weeraryahan oo markaasi ay ka doonaysaa Premier League dhexdiisa, waana Ivan Toney, waana xidigaasi muhiimka ah oo markaasi reer England waxayna doonayaan in la soo siixdaan. Arsenal waxay doonaysaa weli ay ku adkeysanaysaa Alexander Isak ninka la yidhaahdo oo markaasi kasoo jeedo waxaa la yidhahdaa wadanka Eritrea asalkiisii, laakiin hadda waxaa waaye wadamadan kale u dhashay oo hadda waxaa leeyahay Newcastle ay u ciyaaraa, waana xidig muhiim ah Isagan. marka dalka Sweden ayaa la leeyahay markaasi wax badan soo joogay. waxaa marka doonaya leeyahay inuu markaasi Arsenal ku biiro maadaama uu yahay weeraryahan aad u haris badan oo markaasi wax badan kusoo kordhin karo. ciyaartoy kale oo ayagana la kala doonaya way jiraan. Liverpool waxay ku adkeysanaysaa haddii Alexander Arnold ay iibinayso, Real Madrid ay ka iibinayso inay 100 milyan miiska soo saaraan. Manchester United waxay kale ayadana doonaysaa xidig Mikel Olise labada gool ka dhaliyay ciyaartii markaasi isbuuci hore oo markaasi wacdara ku dhagoona xidig reer Faransa ah oo markaasi madow ah. waxaana laga yaabaa in markaasi lacagta 60 milyan ah ama 70 milyan mid ay noqoto in xidigaas kula seexato walow tartan ay kala kulmayaan kooxo kale oo Premier League ah. waa arki doonaa wax ciyaaraha kasoo kordha halkan in kusoo gudbin doonaa Goal Sports meel fog gaarsiiya share gareeya inta barnaamij lamida kulmi doona fi amaanillah.